Kaalay, Kaalay, Immanuu'eelow, Ilaahay nala jooga. Ilaahu dadkaaga badbaadi oo ka samata bixiyay dhibaatooyinkooda oo dhan. Baabi'inooga dhimashada oo kuwii cimrigoodii oo dhan addoonnimo ugu hoos jiray cabsida dhimashada oo kuwa xanuunsataan iyagoo cabsigii dembiyadooda u jiran. dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa si weyn arkay oo kuwii fadhihi jiray dalka hooska dhimashada ah iftiin baa u baxay. adigu quruunta waad badisay oo farxaddoodiina waad sii kordhisay. waxay hortaada u farxaan oo ay u reereeyaan waayo ushii kii duuli jiray ayaad jabisay. waayo waxa ay noo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil oo boqornimadu garbihiisay saari doontaa oo magaciisana waxaa loo bixin doonaa kayaab kale iyo la taliya iyo ilaaha xoog kale iyo aabbaha daa'imka iyo amiirka nabadda. dhalashadii masiixu sidan ay ahayd. ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray gabadh bikrada oo u doonanayd nin la odhan jiray yuusuf. gabadhana waxaa la odhan jiray maryam. malaa'igtii baa ku tiri ha biqin maryamay, waayo nimco ayaad ilaah ka heshay. waad uuraysan doontaa oo wiil baad umali doontaa, magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise. kolkaasaa maryam waxay malaa'igtii ku tidhi, sidee baa waxaanu ku noqon doonaa? anigu nina garan maayo. malaa'igtii baa u jawaabtay oo ku tidhi, wax aan ilaah kari doonin ma jiro. maryam ayaa tidhi, waay kan waxaan ahay addoontii rabbiga, sidaad u hadashay hay noqoto. maryam oo u doonanayd yuusuf intaanay isu iman waxaa la arkay iyadoo ruuxa quduuska ka uuraysatay. yuusuf wuxuu ahaa nin xaqa oo aan doonayn inuu dadka tuso, wuxuuse doonayey inuu si qarsoon weeriyo. laakiin malaa'igtii rabbigu riyo uga muuqatay iyadoo leh, yuusuf ina daa'uudow, ha ka baqin inaad naagtaada maryam qaadatid, waayo waxa ay uuraysatay ayaa ruuxa quduuska ka yimi. oo waxay umuli doontaa wiil, magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise, waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa. waqtigaas waxaa dhacay in amar ka soo baxay kaysar awgustus in dadka dunida jooga oo dhan la qoro. yuusufna galili ayuu ka kacay oo wuxuu aaday yuhuudiya ilaa magaaladii daawuud oo baytlaxam la odhan jiray in lala qoro maryam oo ahayd tii u doonanayd oo uurka lahayd.
waxaa dhacay kolkay halkaas joogeen in maalmihii ay umuli lahayd dhammaadeen waxayna umushay wiilkeedii curadka ahaa markaasay mara ku duuduubtay oo qabaal ku jiibisay dalkaas waxaa jiray adhijirro bannaanka jooga oo habeenkii idahooda ilaalinaya malaa'igtii rabbiga ayaa ag istaagtay oo ammaantii rabbiga ayaa iftiimisay hareerahooda aad bayna u baqeen markaasaa malaa'igtii ku tidhi habaqina waayo ogaada waxaan idiin keenay warar wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan waayo maanta waxaa magaalada daawuud idinku dhashay badbaadiye oo ah masiixa rabbiga ah oo waxaa calaamo idiin ahaan tan waxaad heli doontaan ilmo yar oo mara ku duuduuban oo ku jiifa qabaal markaasay dhaqsaa u yimaadeen oo waxay heleen maryam iyo yuusufa iyo ilmihii oo qabaal ku jiifa oo goorta ay arkeen way noqdeen iyagoo ilaah ku ammaanaya oo ku weynaynaya waxyaalihii ay maqleen oo ay arkeen oo dhan goortii ciise ku dhashay baytlaxamtii yuhuudiya waxaa yeruusaalem bari kaga yimid niman xigmad leh iyagoo leh bari ayaanu xidigtiisii ka aragnay oo waxaanu u nimid inaannu caabudno oo xidigtii ay bari ka arkeen ayaa hor kacday ilaa ay timid oo ay kor joogsatay meeshii ilmuhu joogay oo goortay xidigtii arkeen ayay farxad aad u weyn ku farxeen markaasay gurigii galeen oo waxay arkeen ilmihii iyo maryam hooyadiis wayna dhaceen oo caabudeen isaga oo intay qasnadahoodii fureen waxay isaga u dhiibeen hadiyado dahab iyo beeyo iyo malmal ah waxaa yeruusaalem joogay nin magaciisii ahaa simcoon ninkaasi wuxuu ahaa nin xaqa oo cibaado leh waxaana ruuxii quduuska ahaa u muujiyey inaannu dhimasho arag intaannu rabbiga masiixiisa arkin oo wuxuu ruuxii ku galay macbudka oo goortii waalidkii keeneen wiilkii ciise ahaa inay caadadii sharciga ku sameeyaan markaasuu gacmihii ku qaaday oo ilaah ammaanay oo yidhi rabbiyow iminka addoonkaagu nabad ha ku tago sida hadalkaagu yahay waayo indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada tan aad dadka oo dhan hortiis hagaajisay oo waa iftiin quruumaha lagu muujiyey iyo ammaanta dadkaaga markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalihii lagaga hadlay isaga simcoon ayaa iyaga u duceeyey Riyaaqa